السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولليال كسو دوادا إن شاء الله تعالى برنامج مهمة وأن دونينا ولا لهنينا نوغفا إلينا عرورت ولليال وحاوي يهيبو يداق إلهي بحيو وحالغا يابا والد بدن أما لبا قفو إسقبته ilmaha u dhasha ama qaraabada ilmahooda iyo ehelkaba markuu ilaahay ku irsaaqo midkood ilmo cusub oo nolosha ku soo biiray inay magacay u bixin lahaayeen ku wareeraan ayaa laga yaabaa magac khaas u ah raadintay u raadinayaan inay ku wareeraan baa laga yaabaa ilmaha ku dhashay hadduu gabar yahay waxaa waalidka waajib ku ah magac khaas u ah oo dumarka khaas u ah oo wanaagsan inay u bixiyaan magacaasoo calaamad qurux badan iyo macno fiican bixinaya taasna waa qayb ka mid ah deeqda ilaahay ku siiyey oo ilmahaas ah ma haddaad ka mahad celinaysay dhowr magac ayaan idiin sheegayaa walaalayaal dhowrkaa magac midkaad doontid ka dooro magacyo naadira weeye oo qurux badan oo aad u ifaya magacyadan asalkooda jannada ayay ka soo jeedaan idan gara marka magacyadaas sida gabadhaada ama gabdhahaada aad ugu bixisid magaca koowaad waxaa weeye tasniim waa magacaadu qurux badan oo wanaagsan qur-aanka kariimka ayuu ku soo arooray markuu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala wa misaajuhu min tasniim suuratu lmutafifiin aayadda 27 waxaana la yidhaahdaa eraygaas tasniim ah waa magac ay iska leedahay mid ka mid ah ilaha biyaha barwaaqada ee ka soo burqada jannada ishaasna waxaa ka cabba qayb ka mida kuwa ilaahay u dhow ee saalixiinta ah waxaana la yidhaahdaa waa sharaabka iyo cabbitaanka ugu qaalisan ee jannada laga helo magaciisu waxa weeye tasniim waa magac wanaagsan oo asalkiisa jannada laga keenay gabadhaada waad ula bixi kartaa magaca ku xiga ee labaad waxaa weeye walaalayaal kawthar macnihiisuna waxaa weeye khayrka tirada badan iyo xoolaha tirada badan asalkiisu waa waxa badan waxaana magaca iska leh baa layidhi webi ka mida webiyaasha jannada dhexdeeda qur-aankana waa ku soo arooray magacaan ilaahay wuxuu yidhi innaa acdaynaaka alkawthar culammadu waxay ku fasireen qaarkood magac uu iska leeyahay webiyaasha jannada ka mid ah ee biyihiisu ka cad yihiin caanaha kana macaan yihiin macaan kasta iyo malabkaba kawthar marka waa khayrka tirada badan iyo maalka tirada badan magaca saddexaad waxaa weeye jinaan waa janno oo la jamciyey jannadana janno waxaa loogu bixiyey li'anna jannada waxaa dabooshay geedaha ka dhex baxay ee quruxda badan caleentooda waxaana laga keenay ereyga ah junna oo ah waa asturan yahay idan jannadu waa asturan tahay ma aragno hadda jannada dhexdeeda markaad tegtidna geedaha iyo caleenta quruxda badan iyo doogga iyo cagaarka ku yaallana waad cajabaysaa sidaa darteed baa janno loogu magacaabay jinaan buya marka magacaas haddaad u bixishid gabadhaada jinaan waa magacaad u qaaliya magaca afraad waxaa weeye sundus asalkiisu wuxuu ahaa erey farrisi ah waxaana loo jeedaa qayb ka mida dharka cagaaran ee laga sameeyo diibaajka jilicsan yacni xariirta qayb ka mid ah baa asal ahaan magacan iska leh sidaa darteed ilaahay qur-aanku ku sheega oo wuxuu yidhi wayalbasuuna hiyaaban khudran min sundusin wa istabraq fii suurati alkahfi aayadda 31 waa magac qaaliya marka sundus magaca shanaad waxaa weeye sidra magacaana waxaa iska leh geed jannada ku yaalla caleemihiis waxaa kaloo la yidhaahdaa waa geed ku yaalla samada 7 oo malaa'igtu ay ku kulanto waxaa kaloo la yidhahdaa waa geed ku yaalla carshiga ilaahay midigtiisa sidra amba sidr qur-aankana waa ku soo arooray qaala tacaalaa ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
cindahaa jannatulma'waa xilligii rasuulka la dheelmayna halkaasi wuu gaaray culuumta ama ogaanshaha makhluuqa ay wax ogaadaan geedkaasaa u dambeeya wixii ka sii dambeeya wuxuu ilaahay og yahay oo keliya oo cilmiga khalqiga halkaas ayuu ku egyahay sidratulmuntaha marka waa magacasna asalkiisu jannada ka soo jeedo sidra gabadhaada waa la bixi kartaa magaca lixaad waxaa weeye salsabiil magacaasna waxaa iska leh il biyo ah oo jannada ku taalla waxaa kaloo lagu tilmaamaa biyo kastoo macaan baa magaca iska leh ilaahayna qur-aanku ku sheegay oo wuxuu yidhi caynan fiihaa tusammaa salsabiila il baa ku dhex taalla buu ilaahay leeyahay jannada lagu magacaabo salsabiila magaca ugu dambeeyaan soo qabanayna waxaa weeye ee toddobaad jana waa magac qiimo badan isaguna jana asalkiisu jannadu ka soo jeedaa ereygaana asal ahaan waxaa iska leh beeraha quruxda badan qur-aanka in badan ayuu ku soo arooray waxaana loo jeedaa waa booska khayrka iyo wanaagga gabdhaha markii loo bixiyo magacaasna waxaa laga wadaa gabadhii quruxda badnayday ee jannada ahayday ee ubaxa qiimaha badan ahayday jana markaad leedahay muttakiina calaa furushin bataa'inuhaa min istabraqin wajana aljannatayni daan wajana aljannatayni jana ilaahay wuxuu leeyahy ahlu jannaha sariiro iyo kuraas iyo barwaaqo ayay sidaa ugu farfadhiyaan ugu hurdaan oo laga sameeyey istabraq macnaha xariir adag iyo xariir jilicsan kala nooca jannadana waa loo soo dhowaynayaa miro gurashadeeda iyo baashaalka dhex yaalla maasha allah magacyadaas mid uga doora gabadhaada ku dhalan doonta magacun hadday leedahayna hadda ka beddel oo kuwaan mid ka mida u bixi sababtoo ah ilmaha markaad magaca u bixinaysa waa inaad ka fiirsataa magaca ilmaha waa saamaynaya magaca xun haddaad u bixisid wuu saamaynaya magaca iyo shayga loo magac bixiyey saamayn iyo xiriir bay wada leeyihin marka magacyadan qallafsan ee xunxun aynu iska ilaalinna magacyo wanaagsan oo qiimo iyo qurux tilmaamaya ilmaheenna u bixinna gaar ahaan gabdhaha insha allahu tacaalaa barnaamij kaloo noo xigtaa waxay yihiin magacyada wanaagsan ee gabdhaha u bixin kartid iyo kuwa xunxun ee aad ka ilaalinaysid iyo kuwa wiilashaad u bixinaysid iyo kuwa aad ka ilaalinaysid insha allahu tacaalaa si waalid walba oo mid ooga doorto aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaam iyo mahadnaq ayaad naga mudan tihiin meel kastoaad joogtaan ha hilmaaminana walaalayaal inaad sii faafisaan ooga faa'iidaysaan walaalaha kale adinku haddaad ka faa'iideen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu